بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحابتا channelkayga ku xiran waa markale walaashin saari muuqaal cusub waxaan rajeynayaa caafimaad qabtaan axbaabteeda soo dhawaada markale muuqaal cusub maasha Allah tabaaraka Allah wala kala mashquul afwan waxaan rajeynayaa ka wada heli doontaan insha Allah taala waa iska cunto fudud cuntooyinka fudud ayaa noo socday bariye dambo waxyaabaha aan ka diyaariyay qaabkii aan u diyaariyay faa'iideysi wanaagsan halkan waxaa ku haystaa skillet chicken ah basal siir aan u soo jarjaray 10 xabo ukun ah paprika chicken masala filfil iyo toon intaas ayaan isku soo diyaarin doonaa insha Allah waxaan kaloo isticmaali doonaa insha Allah rootiga sliceka oo bacaan isticmaalaa insha Allah qiyaasta kugu filnada taqaanid maasha Allah tabarakallah ila wada socdo insha Allah video bilow ila dhamaad waad ka wada heli doontaan waana fahmi doontaan casharka insha Allah taala qaabkaas ayaan u soo diyaarsaday maasha Allah haddana waxaan bilaabayaa inaan soo diyaariyo insha Allah sidaas wacan ila socdo axbaabteeda insha Allah taala aan filayaa inaad ka wada heli doontaan insha Allah haatan waxaan bilaabayaa ukunta inaan soo garaaco insha Allah axbaabteeda intaan soo garaacay insha Allah kadib waxyaabaha kale ku sameynaa ila wada arki doontaan si wacan ila socdo insha Allah wax yar cusbo ayaan ku daray sida wada arkaysaan waxaan kaloo ku daraa basashii iyo jarjarneed sida wada arkaysaan maasha Allah waa hab fudud oo aad u macaan cunto yar oo fudud aad ku diyaarsan kartid haddana waxaan soo diyaarinayaa chickenka carfiskiisa ayaan ku soo shubaa insha Allah horaan u soo dhaqay waa soo nadiifiyay waa soo jarjaray maasha Allah digsi qaleel ayaan dabka saaray sida wada arkaysaan saliid ama ku daray carfiska chickenka ka dhex mariyay kadib ayaan digsiga ku soo shubay sida wada arkaysaan axbaabteeda maasha Allah chickenka noo soo karaa ukuntii aan isku soo garaacay aan ku soo laabanayna insha Allah taala waqtiga ama birta ayaa dabkiisii saaran oo isoo kululaatay sida wada arkaysaan saliid yar ayaan ku soo shubay aan badnay sida wada arkaysaan maasha Allah tabarakallah ukuntii basasha isku soo garaacay cusbadii ayaan ku soo shubay insha Allah qaabkaas wacan ila soo axbaabteeda insha Allah sidoo kale rootiga ukunta ayaan soo dhex gelinayaa hal dhinac ka mid ah si fiican uga bogto insha Allah dhinaca kale oo aan ukunta lahayn waxaan saaray ukuntii aan ku shubay birta qaabkaas ayaan ku soo wadaa axbaabteeda insha Allah waan filayaa inaad ka wada heli doontaan insha Allah taala sidaas ayuu chickenkeena diyaar noogu noqdo diyaar ku yahay maasha Allah hadda sida wada arkaysaan waan gidinayaa waan soo gidiyay chickenkii sidaas ayuu diyaar ku yahay maasha Allah saxanka ayaan ku soo shubay haddana markii rootiga ukunta diyaar noqday waxaan ku soo shubay chickenkii maasha Allah tabarakallah sidaas ayuu diyaar ku yahay macaanka inaba caadi ma waa cunto fudud oo aadan ka caajisaynin maasha Allah tabarakallah soo tijaabiyo axbaabteeda waad ka wada heli doontaan insha Allah diyaar waa xabada labaad ayaan ku soo shubay insha Allah labada xabo oo ugu horeysa markii ay idin tusiyo idinku fiilan maasha Allah tabarakallah video ayaan ugu dheerana wax oo dhan ayaan idin tusinaya haddii ay idin dhaw axbaabteeda sidaas ayaan rajeynayaa inaad u fahamteen oo aad uga wada hesheen markii aan soo dhameeyo oo aan soo diyaariyo saxanka aan ku soo diyaariyo ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah taala wax basal iyo barbarooni ma isticmaali doon ciyaalkayga ma xiiseeyaan qaabkaas maasha Allah sidaas ayay ku dhantaa cashadani fududeed maanta axbaabteeda sida wada arkaysaa maasha Allah tabarakallah casiirkina meesha ma ka muuqnaa casiir alla casiirka rabtid ama juuska rabtid ayaa u diyaarsan kartaa maasha Allah tabarakallah waa alaab inaba caadi ah soo tijaabiya waad ka wada heli doontaan insha Allah haddana mayonnaise yar ayaan dhexda ugu soo shubaa insha Allah maadaama ciyaalkan u diyaarinay mayonnaise ay xiiseen maasha Allah haddii aadan mayonnaise isticmaal ama aadan xiiseyn waa iska dayn kartaa sideeday maasha Allah ku tahay way isku dhantahay waa cunto isku dheelitiran haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo please subscribe haddii aad horey noola joogto ka hesho muuqaalka like garee asxaabtaada iyo eheladaada noo sii share garee
wixii fikradana xagga commentiska igu soo qora. Fikradiina waa ii muhiim, waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan had ila socotaan fariimihiin isugu jira dhiirigelinta iyo ducada. Jazakumullahu khayr. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Jazakumullahu khayra. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.